waa maxay xayeysiinta Facebook? maanta waxaa lagu kala tagay fahamka dunidan casriga ah. bahda gal ganacsi waxa ay bulshada inta aan ka warqabin sharaxaad kooban ka siinayaan muhiimadda xayeysiinta Facebook ee ganacsiga. xayeysiimuhu waxa ay mar walba ahaayeen soo jireen ku kala duwan hadba heerka nolol ee lagu sugnaa. tusaale, mar waxaa la soo maray si xayeysiin loo sameeyo la diro dad u safra magaalooyin iyo dalal kale. mar waxaa la soo maray oo wali taagan in xayeysiimaha la marsiiyo telefishinno, idaacado iyo wixii la mid ah. balse hadda inta baraarugsan ee xaaladda la socota ayaa oge waxaa la marayaa xilli qofka adeegyada ama ganacsiga loogu geeyo xaafadiisa, xafiiskiisa iyo wixii la mid ah. si kooban, xayeysiinta Facebook waa hanaan aad ganacsigaaga ku gaarsiin kartid dad badan adigoo aanan u marin idaacad, telefishin iyo wixii la mid ah. tusaale, adigan hadda daawanaya muuqaalka waxay u badan tahay in aad kala socotid Facebook ama YouTube. sidaas oo kale ayaad ganacsigaaga ku gaarsiin kartaa bulshada, waliba adigoo gaar u xulanaya deegaanka aad rabto, dadka aad doonayso iyo wixii muhiim ku ah. kanaalkan gal ganacsi waxa uu sanadkan 2022 diyaar u yahay in xarumaha ganacsi ee Soomaalida dal iyo dibad uu kala shaqeynayo sida ay macaamiil badan uga heli lahaayeen internetka, magacoodana sare ugu qaadi lahaayeen tuulooyinka la wada joogo ee internetka. soo dhawaada, waadna soo wici kartaan WhatsApp iyo wicitaanka caadiga ah intuba. mahadsanidin.